Soo dhawaada saaxiibayaal, maanta waxaan idiin wadaa taxanaha Squid Game qaybtiisa cusub ee Season 3. Bilowga filimka waxaa aragnaa Sang Woo oo qoriga kor u taagaya. Gudaha waxaa u soo galaya askarta waxayna bilaabayaan inay si dhaqso leh ku dhuftaan cirbadda suuxisada. Dhanka kale saaxiibkiisa Si Yan ayaa asagana isla markii wuxuu iska dhigayaa qoriga waxaana u tegaya ciidamada ilaalada geemka waxayna bilaabayaan in asna ku dhuftaan cirbadda suuxisada. Waxay hubinayaan inuu si toos ah u suuxay in kale way soo qaadayaan. Markay si toos ah u suuxaan waxayna ku soo ridayaan sanduuqa dadka meydka lagu rido ayagoo u soo habeeyey sidii hadiyad oo kale. Waxayna la imaanayaan gudaha ciyaartu waxay ku furmaysaa Ji Hang oo lagu wado sanduuqa meydadka waxaana lasoo dhex dhigayaa ciyaartooyda kale dhexdooda. Isla markii waxay bilaabayaan inay ka qaadaan daboolka waxayna arkayaan inuu suuxsan yahay. Dhanka kale waxaa aragnaa koox gaangis ah oo wadatana doon raadinaysana xeebta oo ka dhacayo geemkan. Dhanka kale waxayna tusayaa Ji Hang oo indhaha soo kala furaya bilowga geemka. Gudaha waxaa u soo galaya ilaalada geemka waxayna bilaabayaan inay dadka u soo bandhigaan lacagta geemkan taala oo gaaraysa 660 milyan. Isla markii Ji Hang ayaa bilaabaya inuu rafasho abuuro isagoo ku qeylinaya waxaad disheen saaxiibkayga. Dhanka kale waxaa aragnaa bannaanka geemka waxaa ka daawanaya maamulaha geemka. Waxaa loo soo bandhigayaa inay laba doorasho midkood ay haystaan inay geemka sii wadaan iyo inay iska joojiyaan. Tiro ayuu u bilaabayaa wuxuuna u tirinayaa ilaa iyo 3. Gabadhan oo magaceeda la yiraahdo Ji In ayaa bilaabaysa inay noqoto qofkii ugu horreeyay ee u codeysay geemka waxaana la siinayaa calaamadda O oo u dhigmato haa. Waxaan aragnaa dhanka kale laba ka mid ah ilaaliyaasha geemka oo gudaha u soo galaya qol ku yaala dhulka hoostiisa. Waxaan aragnaa geemka inay u kala codeeyeen. Geemka waxaa diiday 18 qof halka ay ogolaatay 41 qof. Tiimkii ogolaaday inay geemka hore usii wadaan waxay bilaabayaan inay ku jeesjeesaan tiimka diiday geemka inay hore usii wadaan. Gabadhan ayaa waxay u imaanaysaa Ji Hang waxayna bilaabaysaa inay si aan caadi ahayn ugu jeesjeesto ayna ku dhoola cadeyso. Wuxuu bilaabayaa inuu isla markii ciidi ku qabto waa laga fujinayaa waxaana arkaynaa inuu Ji Hang xiran yahay oo loo xiray foodada uu sameeyey darteeda. Dhanka kale waxaa aragnaa ciyaaryahan ku dhaawacmay geemka oo yaala qolka bukaanada. Waxay bilaabayaan bukaanada inay wax sharci darro ah ku sameeyaan bukaanka ayna kala baxaan beerka iyo keliyaha. Ninkan aa ujeedin ayaa wuxuu leeyahay waa inaad samaysaan waxaan dhiiggeedii amro. Gabadhan aniga ayay ila shaqaysaa. Isla markay bilaabato hawsha waxay bilaabayaan inay qalliin ku sameeyaan laakiin gabadha ayaa kasoo horjeesanaysa waxayna bilaabaysaa inay qorigeeda soo qaadato halkaas ayay dhammaantood ku laynaysaa. Dhanka kale waxayna la tusayaa tiimkii geemka diiday oo la tusayo dadkii ayaga ka horreeyay geemka diiday oo kor laga soo laalaadiyey. Waxayna bilaabayaan tiimkii geemka ogolaaday inay soo galaan qolkan aadka u weyn ay taalo labadan doorasho. Haddii kugu soo aado kuusha buluugga waxaad ka mid tahay dadka geemka ogolaaday halka haddii kugu soo aado kuusha gaduudka ee ka mid tahay inaad diiday geemka. Dadka geemka ogolaaday waxaa hadiyad aan loo siinayaan halka dadka geemka diidayna waxay bilaabayaan dadka geemka diiday inay u qaybiyaan hadiyado ku jira baakado gaduuda. Waxaa furaya ninkan waxaana ku jira mindiyo aad iyo aad u af badan laakiin dadka aad ayay u naxayaan. Kuwii geemka ogolaaday waxay bilaabayaan inay aad u calaacalaan laakiin waxaa la siinayaa hal doorasho oo ah inay ka bedeli karaan mindida ayna u dhiibi karaan jijinta qofkay rabaan. Ninkan ayaa u imaanaya maamada wuxuuna isku dayaya inuu si xoog ugu qaato laakiin way ka diidaysaa. Gabadhan ayaa saaxiibkeeda uga hadiyeynaysaa inay siiso mindida inay ka qaadato jijinta. Dhanka kale yarkan ayaa wuxuu bilaabaya inuu Ji Hang u imaado oona ku hanjabo inuu ka qaadanayo mindida laakiin askari ayaa gadaal ugu imaanaya wuxuuna u sheegay inuu rafashad sameeyey oona joojiyey buuqa. Dhanka kale waxaa aragnaa tiimkii geemka ogolaaday in loo sii wado qol gudaha ku yaala. Tiimkii geemka ogolaaday ayaa waxaa la keenayaa qolkan aadka u weyn oo godadka badan waxaana laleeyahay qof walba waa inuu ilaashadaa waqtigaas intaas waqtigaas dhammaanin waa inuu dhuntaa oona ku dhuntaa meel aan laga soo saari karin. Qof walba wuxuu bilaabayaa inuu sida ugu dhaqsiyaha badan ku dhunto halka kuwii kale ay sugayaan inta waqtigaas ka dhammaanayo si ay u soo raadiyaan tiimka dharka buluug. Waqtiga ayaa dhammaanaya isla markiina waxay bilaabayaan inay gudaha u galaan ayna soo raadiyaan tiimka dharka buluugna. Dhanka waxaa aragnaa Ji Hang oo soo istaagaya asagoo wata mindidiisa bilaabayana inuu raadiyo. Isla markii qaybta koowaad ee filimkan Season 3 wuxuu ku dhammaanayaa halkan. La soco qeybaha xiga halkan ayaan soo gelin doonaa. Qaybtan Season 3 waxay leedahay ilaa iyo 6 qaybood halkan kala soco. Mahadsanid channelkana soo subscribe garee.